isugu yaqaanaa exactly situationka wuu yaqaanaa laakiin never yani nebiga marna qofkaas magaciisa publicly ba sheegi jirin suuraddiisa ma soo dhigi jirin hebel baa saa sameeyey ma dhihi jirin والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أصحابته أخيارته كل وان سلامي ما شاء الله هلكن وكوج مريم وحنا سي ودنينا تحنيني كسابسنا xiriirka wanaagsan su-aal baa isweydiin kartiin oo ah coach maryane maanta o dhan maxaa noga daba wadaa yani xiriir wanaagsan inaa maanta o dhan ka sheekeynaysid jawaabtana waa jawaab aada u fudud haddaad jeceshahay farxadda ugu weyn inaad qalbigaada ku abuurtid haddaad jeceshahay albaabada kheyrka iyo albaabada farxadda iyo albaabada xasaloonida naftaada iyo noloshaadaba inay kuu furfurmaan waxaad ku dadaashaa xiriirka wanaagsan aa ilaahay la leedahay aa naftaada la leedahay aa dadka la leedahay haddana waxaan ka hadlaynay marka ugu dambeysa hadda yani videoga ugu dambeeya waxaan ka hadlaynay xiriirka wanaagsan aa dadka la leenahay haddaan ka hadla again saameynta ay ku leedahay xiriirka wanaagsan aa dadka la leenahay يعني وحي سامينيسا هرمركادا iyo najaaxkaada iyo horumarkaada nolosha because xitaa haddaa ka hadashid shaqadaada for example cv-gaada waxyaalaha ugu muhiimsan ee fiirinayaan dadka waxa waaye xiriir wanaagsan yani effective communication skillskaada haddaa fiirisid gurigaada home environmentka hadduu gurigaada guri oo xasalooni iyo nabad iyo wanaag aad rabtid waa inaa la lahaatid xiriir wanaagsan lamaanahaada caruurtaada iyo dadka gurigaada kula nool haddaad jeceshahayna aakhiro inuu ilaahay casa wajal meesha ugu sarreysa inuu ku geeyo oo aad noqotid dariska ugu soo dhow oo nabiga calayhi salaatu wasalaam oo daris la noqon can you imagine yani ma takhayuli kartaa inaan la noqotid nabiga calayhi salaatu wasalaam daris taasna maxaa ku keeni kartaa يعني سبب درجadaas u heli kartaa markaa la lahaatid xiriir wanaagsan dadka markaasaa hore uga soo hadalnay waxaan dhahnay mowduuca barashada yani bulshada xiriirkeeda ama communication with people waa mowduuc aad u ballaaran laakiin meesha ugu baraka badan iyo meesha ugu kheyr badan aa ka bilaabayno mowduucaas inaa yani isla wadaagno aa sii fahano aa sii baranno waa aayadaha qur-aanka iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam siduu ilaahay noogu sheegay qur-aanka wanazalnaa calayka alkitaaba tibyaanan likulli shay waxaan kugu soo dejinay yani ilaahay nabiga calayhi salaatu wasalaam ula hadlayaa waxaan kugu soo dejinay kitaabka oo qur-aanka ah inaan kugu barno inaan ku fahansiino inaan kugu bayaaniino tibyaanan likulli shay wax kastaba cilmi kasta adduunkan fiiri sal waxa ku leeyahay yani nuxurkiisa iyo salkiisaba qur-aanka waa ka helaysaa yani asligaas cilmigaas waad ka helaysaa wax ku saabsan cilmigaas qur-aanka waad ka dhex helaysaa marka subxaan allah intaas keliyana ma aha wahudan waraxmatan wabushraa lilmuslimiin haddaa rabtid inuu ilaahay kugu hanuuniyo inuu yani the right direction uu ku tuso yani inuu ku tuso sida saxda ah sida oo ugu fahmadaada ugu wanaagsan sida waxaas uga faa'iidaysan kartid yani huduu ku siinayaa waraxma xasalooni iyo naxariisu qalbigaada gelinaya iyo bushraa lilmuslimiin bishaaro oo ilaahay kugu bishaaraynayo adduunyadan iyo aakhiraba aayadda ugu muhiimsan ama aayadda ugu caan badan oo ka hadlaysa xiriirka bulshada sidii culimmada tafsiirka ee dhaheen jamcat makaarim al akhlaaq wuxuu isku soo aruurisay akhlaaqda ugu muhiimsan lagaa rabo inaad lahaatid markaa rabtid inaa bulshada xiriir wanaagsan inaad la lahaatid aayaddaas wuxuu ku taalaa suurat alacraaf khudi alcafwa wa'mur bilcurfi wa acrid can iljaahiliin videogii hore waxaan ka hadalnay khudi alcafw يعني waxaa ka qaadataa dadka dabeecadooda way kala duwan tahay akhlaaqdooda way kala duwan tahay marka dadka haddii ku tusaan dhinac yani akhlaaqooda ama shakhsiyadooda dhinaca wanaagsan haddii kuu muujiyaan uma baahnid inaa maanta dhan adiga fagfagtid ama aad fiirisid khaladaadkooda inaa maanta dhan fiirisid ama waxyaalihii ku liitaan inaa maanta dhan baartid ma aha dhinacooda wanaagsan ka qaado akhlaaqdooda wanaagsan ay ku tusayaan ama wanaagooda ay kuu muujinayaan ka qaado waxaan kaloo ka fahanay dadka isku mid ma aha yani ilaahay shakhsiyado kala duwan buu siiyey ilaahay akhlaaq kala duwan buu siiyey xitaa waxaa lagu leeyahay akhlaaqda yani waa risq min arsaaq illah bay ka mid tahay risqu ilaah ku siinaayo ay ka mid tahay marka dadka iskuwada akhlaaq ma aha marka qof kastaba
sida ugu mudan inaa la dhaqantid sida adiga jecesha naftaada in lagula dhaqmo inaa adigana ula dhaqantid dadka فيديوغانا waxaa uga hadlaynaa insha Allah wa'mur bilcurf wa a'rid 'anil jaahiliin wa'mur bilcurf yani ilaahay casa wajal wuxuu ku leeyahay markasta waxaad ku dadaashaa inaa amr bilmacruuf iyo nahyi 'anil munkar yani waxa wanaagsan inaad dadka ku waanisid wixii oo yani wanaag curf waxaa la dhahaa wax kasta oo yani wanaag oo diinteena qabto iyo curfiga yani waxyaalaha dhaqanka wanaagsan ee dadka isla wada yaqaaniin يعني waxyaalaha oo wanaagsan oo dhaqanka oo dadkoo dhan isla wada yani ay wada ogol yihiin ama heshiis ku yihiin dhaqanka waa dhaqan fiican oo wanaagsan curf baa la dhahaa marka sidee baa u naseexayn kartaa ama sidee dadka advice u siin kartaa taas waa tana rabna inaan xoogaa yar aan sii galno saan sheegnay amru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar yani waxyaalaha oo waajibaadka ama waxyaalaha oo laga rabo qof kastoo muslim ah inuu sameeyo waaye laakiin su-aasha waxa waaye sidee baa dadka yani advice u siisa haddaa rabtid inaad nasiixad dadka siisid haddaa rabtid inaad dadka nasteexaysid sidee ugu habboon sidee ugu wanaagsan aa qalbiga walaalkaa aa siinaysid nasiixadaas aa qalbigiisa ka jabinaynin sida ugu wanaagsan aa adigaba jeclaan lahayd markii wax laguu sheegaya inaa ugu sheegtid asagana waxa ugu muhiimsan ay tahay horta marka ugu horeysaba inaad ka fikirtid waa niyadaada your real intentions يعني إنما الأعمال بالنيات نيات هذا محيط هاي ما واحد وجود ضلنا يعني نصيحة أنا قف كسيني إنا تستد إنا كأقوم بدنت هاي إنا يعني هدي حق الدينين هديته إنا يعني كافي عنت هاي دين هذا سأقول لك ميسد مسا وحي كعت هاي إنا ولالك وناجسد أما ولاشا إنا وناجسد أو ولاشا يعني إنا كعاونتد إني يعني خلط كأسا مثلا إنا كسو نقطة وحياله يعني الدم يكون قشينا إنه يعني كد داش سدوي إلهي توبدي سوق قادم لهاد marka yani aan dhahno niyadeena waa niyad saadiqad ah waxay naga tahay dhabbe naga tahay inaa walaalkeena wanaag iyo khayr inaa la rabno haddaa rabtid nasiixada si wanaagsan inaa walaalka ugu sheegtid ama walaasha waxaa muhiim ah laba wax alxikma walkhusuusiya alxikma maxaa ka wadaa الحكمة وحواي سي حكمت له إنا ولاشا وسيسد because وحا لغو ليهاي قفك مركو خلط قلو especially خلط او حق الدين تأه مركو قفك قلو او يعني معصيد مركو سمايو قفك يعني spiritually و vulnerable يعني وقف او يعني داوع oo yani dhaawac oo macnawi ah baa haysta marka adiga markaa nasiixada siinaysid waa inaa ka fiirsatid inaa qofkaas yani si oo aayar ah oo xasilooni ku jirto oo xikmad ku jirto inaad u siisid xikmadana maxaa laga wadaa yani inaa sida ugu wanaagsan inaa ula hadashid qofka iyo meesha ugu wanaagsan iyo habka ugu wanaagsan iyo waqtiga ugu munaasabsan oo ugu wanaagsanna inaa ula hadashid yani inaa u fiirsatid waqtiyaasha ugu fiican iyo sida ugu wanaagsana qofkan nasiixada ugu gudbin kartid because waa qof oo yani adigaba kasoo qaad haddaa adig khaladna gashid ma jeclid inuu qofka si qalafsan ama si oo xoogaa yar isla weyni ku jirto inuu kugu sheego khaladkaada oo saxda kugu sheego marka tan ugu horeysa waxaa dhahnay xikmad waxa waaye si wanaagsan iyo waqti wanaagsan iyo hab wanaagsan inaa ugu sheegtid qofka khaladkiisa ama nasiixada ama advice-ka u siisid tan labaad waxaa waaye oo aad muhiimna u tahay inaa ka fiirsano alkhusuusiya yani sidii la dhaho yani waxaa la dhahay annasiixa fi lcalani fadiixa markaa qof publicly ama dad hortiisa ama social mediada aa nasiixad u siisid yani qofkaas dhaawac baa u keenaysaa qofkaas yani waxaad fadiixad waa fadiixaysa camal because waxaa laga yaabaa inay dadkoo dhan ogeen qofkaas khaladaadkiisa waxyaaluhu sameeyey waxyaalihiisa historygiisa profilekiisa in laga warqabinaa laga yaabaa laakiin maadaama adiga soo bandhigtay oo dadkii hortooda ku sheegtay qofkaas yani xitaa adag kaa tahay niyadaada saalixad kaa tahay inaad qofkaas wanaagiisa ama inaad yani oo run kaa tahay nasiixadaada laakiin maadaama aad dadkoo dhan ugu dhex sheegaysid taas waxay la mid tahay inaa qofkii fadeexaynaysid because waxa laga dad oo ogeenba inay jirto laakiin hadda maadaama adiga mawduuca
mawduucaas oo qofka kala hadlaysid dadkii oo dhan dadkii ogaanayaa sii badanaya. marka weligaa markaa rabtid walaalka ama walaasha inaa wax wanaag u sheegtid oo yacni dhab kaa tahay inuu qofkaas yacni niyadaada ay tahay qofkaas inuu isbedel inuu sameeyo especially xagga diinta markay tahay si oo yacni khusuusiya privately inaa ugu sheegtid si oo dadkoo dhan ay kula warqabin. haddii dadka haddaad meel yacni inaan keligiis ula baxdid ama yacni keligeed aa ugu sheegtid wax haddii online tahayna qofa online ku taqaanidna inaa private message ina u dirtid direct message ina u dirtid inta ama maxaa la yiraahdaa group chatka whatsapp group chatkiisa ama maxaa la yiraahdaa wallka ama yani meesha yani meel oo publicly dadkoo dhan akhrin karaan ama publicly dadkoo dhan dhageysan karaan ama arki karaan inta ugu sheegi lahayd si oo private ah oo waano iyo naxariis ku jirta ina ugu sheegtid because yani waxaa lagu leeyahay subxaanallah sometimes it's not what you say, it's how you say it. Sometimes waxa lagu leeyahay yani ma ah waxa sheegaysid laakiin waa habka u sheegaysid. taas wixii keeni kartaa qofka haddaa nasiixadii ama advice-ka ah si oo qalafsan ama si oo yani isla weyni ku jirto qofkii waxaa laga yaabaaba inuu yani ka fogaadaba oo opposite ama kasii daraba hadda inuu wax yar aheeda laga yaabaa khalad yar inuu ahaa khaladka inuuba yani oo laba jibaar oo kasii dhigo yani asa raddad ficil ama reaction oo ka keenayo sidaa adiga yani u siisay advice-ka yani inuu yani ama asagana waba kasii daraya laakiin waxaa muhiim ah inaa si oo wanaagsan inaa qofka u siisid oo adoo tixgelinaysid qofkaas yani sumcadiisa iyo adigaba saa naftaada inaa kasoo qaadid naftaadaba inaa kasoo qaadid markaad jecesha in advice lagu siiyo si wanaagsan oo yani xasilooni ah oo ixtiraam ku jiro oo wanaag ku jiro oo kalgacayl ku jiro inaa walaalka u siisid nasiixada aa muhiim ah. bointka labaad aan ka hadlayno wa'mur bilcurf haddii noqoto inaa yani publicly advice u bixinaysid haddii noqoto inaa arrin laga maarmaan tahay inaad yani si oo bulshada dhexdooda inaa advice bixisid oo weliba hadduu yani case oo weliba qofka khaladka galay hadduu qof khaladkiisii yani ku faanaya oo fitnad sameynaya oo yani bulshadii iyo dhalinyaradii iyo dadkii usoo jiidaya macsiyadii oo dhahaya aniga saan baa yeela adinkana saan igu soo biiro oo adinkana saa sameeya qofkaas camal haddii noqoto publicly inay noqoto inay advice loo siiyo sidee loo siinayaa waxaan u siinaynaa siduu nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo u siin jiray qof kastoo khalad gala publicly sidee buu يعني advice u siin jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu qof khalad galo oo yani uu address gareynayo issuega wuxuu sameyn jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam yani laqad kaana lakum fi rasuulillahi uswa xasana yani markasta tusaalaha ugu fiican waxaa ka qaadatiin nabigiina calayhi salaatu wasalaam kuna saliya nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa ugu muhiimsan uu nabiga sameyn jiray yani when he wants to address an issue markuu rabo inuu mawduuc muhiim ah inuu ka hadlo because mawduucaas haddii laga hadlin waa ina laga hadlo because haddii kale fitnad iyo dhib kalaa soo imaanaysa mawduucaas khaladka qofka gala wuu yaqaanaa magaciisa wuu yaqaanaa exactly situationka wuu yaqaanaa laakiin never yani nabiga marna qofkaas magaciisa publicly ba sheegi jirin suuradiisa ma soo dhigi jirin hebel baa saa sameeyey ma dhihi jirin حاشا لله because يعني إلهي عز وجل يعني أما النبي عليه الصلاة والسلام وحو جعلان شري إنو ضدك أستره in fact مقعيد إلهي عز وجل وحا كميد الستير كان جعل إنو خلطات كينا أستره أو عيبتينا أستره مركز سيدو إلهي بيعني عز وجل أو مقعيدي سوغر لغا الستير وحا مهم قف كستبا إنو قف يعني إنو أستره سيدا عيبتا دجعشا بإنو إلهي وأستره عيبت ابن آدم كلانا إنا أسترتد oo tusaale hadana nabiga calayhi salaatu wasalaam ha ahaado siduu u address gareyn jiray wuxuu dhihi jiray maa baalu aqwaamin facaluu kada wa kada yani generalization u samayn jiray yani si guud buu u kormari jiray mawduucii iyo nuxurkii asagoo ka hadlaaya laakiin ma dhihi jirin qofkan hebel maxuu saas u sameeyey ma dhihi jirin ama hebelow saasaa samaysay khalad baa samaysay inaa ka noqotid inaa ilaahay u toobad keentid no ma dhihi jirin nabiga calayhi salaatu wasalaam mawduucii uu ka hadlayaa
arrintii wuu ka hadlaya laakiin wuxuu dhihi jiray maa baalu aqwaamin see ka noqotay dadka qaarkood maxaa waa dadka saan sameynaya maxaa dhacay saas dadka yeelaya yacni dadka yacni generally buu ka dhigaya adoo magacii sheegin because u fiirso ibni aadan kasta inaa naftaada kasoo qaadid waaye yacni asagiyaa xumeynaysaa qalbigiisii baa dhaawacaysa qofkaas xitaa kasoo qaad asaga keligiis ma daawanayo hooyadiis baad daawanaysa aabihiis baad daawanaysa dadkiisii jeclaa oo kusoo tacbo intaasoo dhan soo karinayo dhan baa ka daawanaya oo qalbigoodii iyo maxaa la yidhaahdaa iyo yacni dhaawac u keenaya oo dareemaya inay ayakii naftoodii ceeboobeen marka saa ayakiina dadkii u dareemin inay ceeboobeen oo yacni ibni aadankaas khaldameen aan u asturno inaan u kormeerno especially social mediada inaan soo dhejin qofkii magaciisii iyo hadalkiisii موضوع كهذا لكن سي generally uga hadal hadaa rabtidna qofkan inuu isbedelana advice ka directly u sii privately u sii oo si xasillooni iyo wanaag iyo qurux iyo naxariis lena u sii taasa kusoo koobeynaa wa'mur bilcurf subxaan allah aayaddaas waa ila fahanteen sidai u cajiib u taa u malaynayaa khudi lcafwa wa'mur bilcurf yacni inta waxaan ka hadalnay inta mawduucan ka hadalnay oo saameyn weyn ku leh xiriirka dadka wanaagsan especially different situation yacni marka waxyaalo kala duwan iyo yacni iyo adi situationo kala duwan markaa ka hadlayno sida ee tahay sida wanaagsan ee tahay inaan dadka ula dhaqanno insha allah aayaddaas aakhirkeeda waxay ku dhammaanaysaa wa acrid can iljaahiliin الجاهلين وقفك معها قفك جاهلك لقما وضا قفك يعني أميغا أما يعني أخرين كرين أما قوري كرين قفك جاهلك أو آيات هل كان كهد ليسو وقفك جاهلك حق أخلاق ديسا أخلاق دو جاهل كي هاي يعني قلبي كتشرين هاي أخلاق دو جاهل كي مرك قفكاس عمل سداتها إنا أولو دقنتid إن شاء الله شن قطب أوغا هدلينا وكا عاونايا qofka aragtid inuu akhlaaqda inuu jaahil ka yahay sida ula dhaqmi kartaa videoga soo socdaan ka hadli doonaa taas insha allah intaas kusoo koobeynaa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh